ciidamada booliiska deegaanka axmaarada ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay xabsiga dhigeen tiro mas'uuliyiin ah oo sheegay inay sameeyeen dayacad sababtay in masaajido dhowr ah la gubo. Taliyaha booliiska gobolka Bariga Gojaama gaashaanle sare Ayaale Tafsaaya ayaa sheegay inay xubno mas'uuliyiin ah oo xilal ka hayay dowladda deegaanka axmaarada loo xirxiray gudasho la'aan mas'uuliyadeed weliba faldambiyeedkii foosha xun lagu gubay masaajidada. Waxa uu sheegay in xubnaha la xiray ay kala yihiin taliyaha booliiska maamulka magaalada Moota, madaxii ka hortagga dambiyada booliiska magaalada Moota, madaxii xafiiska maleeshiyaadka maamulka magaalada Moota iyo taliyihii ciidanka maleeshiyaadka ee magaalada Moota ee gobolka Bariga Gojaam ee axmaarada. Dhinaca kale wakaalada warbaahinta deegaanka axmaarada ayaa lagu baahiyay 30 qof oo kale looga shakiyay inay ka dambeeyeen falkii lagu gubay masaajidada, kuwaas oo baaritaan ku socdo. deegaano badan oo dalka Itoobiya ah gaar ahaan deegaanada dowlad deegaanka ayaa waxaa dhawaan ka dhacay bannaanbaxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday saddexdii masaajid ee lagu gubay gobolka axmaarada. Samatar Umar Ismaaciil, wararka VOS News Soomaaliya, magaalada Hargeysa.